يعني waxaad arkaysaa qof da'diisa da' aan ahayn oo kuula muuqanayaa. Markaan taas leeyahayna waxaa mataqaanaa qof weyn oo waxaad arkaysaa qof ilmo ah kuula ekaanayo. Haddii kale waxaad arkaysaa qof yar oo kuula ekaanayo muuqaal ahaan markaad fiiriso inuu qof weyn uu yahay. Alaabtaa marka waxay kaa saacidaysaa ama kuu sahlaysaa inuu wejigaada ahaadaa mar walba weji taagan oo feeraysan. Weji mar walba weji caruur ah inaa yeelato. Haddii aad miim iyo gabow iyo waxyaabahaas aad wejiga ka dareemaysid laablaabka wejiga soo galo, alaabtan way kaa saacidaysaa wejigaadana weji feeraysan oo qurux badan oo mar walbana taagan dhalaalayo birqaayo ay kuu noqonaysaa. Haddii aad tahay kiimiko iyo haddii aad tahay natural labadaba waa isticmaali kartaa. Marka dadka kiimikada ay marsadaana waad ogtahay waxyaabaha wejigooda uu la kulmaayo oo wejigii gabow degdeg ah ayuu dareemayaa. Marka alaabtan waa alaabaan inaba caadi ahayn. Waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta. maxaan dhadhan ku hayo dhayaho keliga rabin inay kugu dhaygagaan maxaan kugu bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalahayga qaaliga meel walbood iga daawanaysaana nabadii caafimaad ku daawada. waa walaashin xushmo oo idin leh isku soo noqod wanaagsan, fiideo cusub, aragti cusub, muuqaal cusub. soo dhawaada kusoo dhawaada janalkayga xushma niyad furan iyo qalbi saafiya. xushma maanta waxay idin wadaa muuqaal kale oo cusub. waxaan rajaynayaa idinkana inay igala faa'iidaysan doontaan. muuqaalka sii sheer gareeya, sii like gareeya, si walaalo kale asxaab kale oo fara badan uu gaaro iyo ayagan uga faa'iidaystaan. soo dhawaad ayaan idin leeyahay. haddii aad tahay asxaabtayda hore waan kaaga mahadcelinaya sida quruxda badan. haddii aad tahay asxaabtayda cusubna soo dhawow adigana. maanta waxaan halkan ku haystaa sidaad ujeedaanba waxa waaye ukun waaye. ukunta qaybteeda cad ayaa halkaa iigu jirto, yani qaybta jaalaha ayaan kasoo reebay. waxaa kaloo halka aan ku haystaa waxa waaye iyadana kofee waaye, qaando kofee ah iyo ukunta qaybteeda cad. hal xabo ayaan waxaan kasoo shubtay, intii yareed ee cadeed ayaan kasoo shubtay. alaabtan waa isku soo qasaya, waan soo garaacaya ku dhahay ilaa in cabaar ah inta iska soo dhexgelayso sidii laga raba ay soo noqonayso waan garaacayaa. fadla adikan ila socda, muuqaalka sii like gareeya, sii share gareeya. waa ku mahadsantihiin daawashadiin iyo sida quruxda badan oo aad iigu xiran tihiin. waana idinkaga mahad celinayaa mar walbo kommentiyadiina ducada iyo dhiirigelinta ah. maasha allah tabaarakallah. anigana waxay ii tahay farxad. mar walba waxaan ku dhiirinayaa markaan kommentiyadiina quruxda badan aan arko inaan muuqaalo kaloo qurux badan aan idiin soo geliyo oo idinkaga faa'iideeyo. waa mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga. maanta muuqaalkan waxaa idinkugu soo gudbinaya waxa waaye yacni gabdhaha wejiga kasoo dareemo kadkadoodka iyo laablaabka, miimta iyo gabowga oo kasoo galo. alaab natural ah oo wejigaada aad ku taagi kartid oo aad ku feerey kartid oo gabowgaas iyo waxyaabahaas aad uga hortagi kartid oo ka hortag aad ku samey kartid. haddii ay hadda ku gashay oo aad dareemaysidna oo aad iskaga saari karta ayaan ku wadaa. sidaad ujeedeenba halkan waxaan ku haystay qaado kofee ah iyo ukunta qaybteeda yani cadaanka ah ayaa halka ku haystay. alaabtan wejiga waad marsanaysaa. waxaana loo baahan yahay muddo dheer inay kuu saarnaato oo jaanis ah u heshid si ay kuugu qalasho. alaabtan wejiga way taagaysaa oo way kusoo toobaysaa, yacni wejiga way kuusoo ururinaysaa, way soo dhuuqaysaa. toobin marka aan ku leeyna waxaa mataqaanaa wejiga way taagaysaa. wax walbo marka oo wax toobane qasab marka meeshii laablaab iyo kadkadood uu kaaga jirin in ay kaa feereynaysaa. ta kale ee alaabtan ay ku siinayso waxaa waaye fitamiino ayay ku siinaysaa. fitamiinada iskiinka haddii uu kaa dhintay iskiinkaada way kuu soo nooleynaysaa, wayna kuu qurxinaysaa oo iskiinkaada mar walba wuxuu ku ahaana iskiin dhalaalaha oo qurux badan. sababtoo ah kafeega waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha cosmeticska inta la isku qurxiyo. qaybaha ugu horeeya ayuu ku jira kafeega oo wejigiina wuu ku cadaan yaroo qurux badan wuu ku noqonayaa. ta kalena wejigiina wuxuu ku noqonayaa weji yaroo maasha allah caruur ah, weji dhayle ah oo bucbuc qurux badan wuu ku noqonayaa. waad aragtay qof weyn ayaad arkaysaa oo da ahaantiisana ay weyntaa. wejigiisana markaad ka aragtid waxaad ka dheehanaysaa inuu qofkan yahay qof yaroo ilmo ah oo wejigiisa waa weji caruur. waxaad kaloo arkaysaa haddana qof yar oo ilmo ah da'diisa iyo wejigiisana ay islahayn oo aad ka wejigiisa aad ka dheehanayso inuu yahay yani qof weyn
oo gaboobay oo weji gabowga yahay. Marka alaabtan waxay kaa caawinaysaa intaasba way kaa caawinaysaa wejigaagana weji qurux badan oo ifaay oo dhalaalaya kaaga dhigaysaa. Haddii aad maalintii jaanis haysid waa saaran kartaa, haddii kale habeenkii ayaad saaranaysaa oo waad ku seexanaysaa, subaxdiina waa iska dhaqaysaa si markaas wejiga uu kuugu taagnaado oo kuugu feereysnaado. Marka waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga meel walbood iga daawanaysaan nabadii caafimaad ku daawada fiidiyowga sii like gareeya sii share gareeya. waa ku mahadsantihiin daawashadiin iyo sida qurux badan iigu xirantiin. Jazakallah khayr.